kulantii wacan daawadayaasheena ku soo dhawaada macluumaad kooban oo ku saabsan dadka Kurdida ah 25 ilaa 35 milyan ayaa lagu qiyaasaa tirada dadka Kurdiyiinta ah ee daafaha dunida oo dhan ku kala nool marka qoomiyadaha bariga dhexe ku nool laga hadlayana watan afraad ee ugu ballaaran qoomiyadahaasi badi waa dad muslimiin ah oo waliba sunni ah walow laga heli karo dad diimo kala haysta haba iska yaraadaan tiro ahaan haddii aad tiraahdo waxaan ahay Kurdi waxa fudud in lagu yiraahdo ma waxaad ka timid Turkiga ma waxaad ka timid Iran sidoo kale ma waxaad ka timid Iraq Syria ama sidoo kale Armenia dadka Kurdida waa dad u kala qaybsama shanta dal iyadoo oo afkoodu isku mid yahay haddana waxa ay ku kala hadlaan saddex lahjadood oo kala duwan iyadoo aanay weli jirin dal gooniya oo ay Kurdidu ku midaysan tahay haddana waxa ay nafsad ahaantooda isku arkaan meel walba oo ay joogaan iyo dal walba oo ay ka tirsan yihiin in ay yihiin qoomiyad gaar ah oo dhiig wadaaga marka su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay dadkan wax walba wadaaga maxaa kala qaybiyay oo dalalka kala duwan ku kala nooleysiyay Kurdidu waa dad weligoodba ku noolaa gobolka la yiraahdo waqooyiga Mesopotamia waxaana ay ahaayeen dad aan xuduud lahayn oo isaga kala gudbaya dalalka dhaca gobolkaasi iyagoo maamul ahaan hoos joogay dawladda Islaamka ee Cusmaaniyiinta ilaa laga gaaro dagaalkii koobaad ee adduunka ku guuleystayaashii dagaalkii koobaad ee adduunka dadka Kurdida waxay u ballan qaadeen in dal gooniya ay u aqoonsan doonaan balse markii la calaamadiyay xuduudaha Turkiga iyo dalalka dariska la ah waxa meesha ka baxday rajadii ay dadka Kurdida ah ay qabeen ee ahayd in dal gooni ah ay iyagu noqon doonaan laga soo bilaabo xilligaasi dadka Kurdida ah waxa ay noqdeen kuwa laga tira badan yahay dal walba oo ay ku nool yihiin mid ka mid ah dalalkaasi waa Iraq Kurdida dalka Iraq dastuur ahaan waxa ay ka mid yihiin dalkaasi balse waxa ay u shaqeeyaan sidii dawlad gooni ah oo maamulkooda iyaga haysta baarlamaankooda gaar ay u leeyihiin iyagoo sidoo kale ciidamadooda gaarka ah leh ciidamadooda gaarka ah waxa lagu magacaabaa Peshmerga kuwa oo sida la sheegayo xitaa ka awood xoogan kuwa guud ee Iraq tusaale sanadkii 2014 ciidamada Iraq waxa ay isaga carareen magaalada Mosul kadib weerar ay Daesh ku soo qaadeen halka kuwa Peshmerga ee Kurdiyiinta ay boosaskooda xajisteen oo deegaanadoodii markii weerarku ay ku soo qaadeen Daesh ay ka loodin waayeen oo ay ka saari waayeen sidoo kale deegaanka Kurdida Iraq waxa uu leeyahay oo uu soo saaraa shidaal iyo gaas isaga gooni ah isagoona si iskiisa oo uu xor u yahay iibgeeysta sida daraadeed waxa lagu qeexaa dal kale ku dhex yaala balse aan si buuxda uga madax banaaneen guud ahaan Iraqta weyn dalalka ay Kurdidu ka mid ka yihiin ee ay u kala qaybsan yihiin waxa jirta arin ay ka midaysan yihiin oo ah in aanay ogolaan samaysinka dawlad gaar ah oo ay Kurdidu leedahay xitaa Mareykanka oo ciidamada Peshmerga ee ay Kurdidu leeyihiin taakuleeya ayaan arintaas isagu dalalkaasi ku waafaqsan oo ku raacsan in madax banaani buuxda la siiyo Kurdida Iraq ku dhaqan waxa ay Kurdida uga dhigan tahay iyadoo sidoo kale madax banaanidooda la siiyo Kurdiyiinta ku dhaqan dalalka Turkiga Iran Syria iyo sidoo kale Armenia xuduudahana dib loo calaamadiyo sidaana uu ku samaysmo dal weyn oo ay ku idil yihiin Kurdida oo dhan waana rajada qof walba oo Kurdiya uu leeyahay oo ay higsanayaan waxa mideeya marka laga soo tago afka iyo dhaqanka iyo dadnimaduna ay tahay sidii ay midaasi u suurtagali lahayd